السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا channel كيغا نالكا نولشا وولاشين مرول بابا نيغا فايدينيسو وحايني ودانتو maanta waxaan idin wadaa waxyaalo aad iyo aad u wanaagsan oo aad ka heli doontaan insha Allah hadii ay tahay markaaga kugu koowaad gambaleelka furo subscribe-na isaar hadii aad nala sii joogtana u soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba gacmo furan marka maanta aan u gudubno waxaan ka hadli rabnaa dad badan ayaa ka caawinaya caatanimada marka maanta waxaan ka hadli rabnaa waxyaalaha la isku cayiliyo si dabiici ah adigoo dib isku geysanin adigoo kiniin isticmaalin adigoo istaal aadin adigoo waxyaalo badan aan raadsanin wax aad ku cayili karto oo gurigaaga aad ka heli karto mar waliba marka waxaan leeyahay maanta waxa aad ku cayili karto maxaa waaye waxaad ku cayili karto maxaa waaye waxa gurigaaga ka heli karto oo aad iyo aad u qaalibadan oo nin walbana heli karo waxaas waa maxay maxaa waaye hal xabo moos ah hal xabo yogurt hal qaado oo peanut ama looska sida u taqaanaan 3 qaado oo sonkor ah iyo waxa kale u baahan tahay makiinada wax lagu shiido intaas loo baahan yahay marka waxaan leeyahay soo dhawaada kursigiina soo qaata koobkiina shax soo qaata maanta iscaateynta waa laga bixi rabaa gurubka cayilka ayaa lagu biiri doonaa insha Allah inta caatanimada dhibsatay maanta wax fiican ayaan idin wadaa marka saddexdaas shay ayaad isku shiideysaan marka hore mooska ayaa soo qaadanaysaa oo fiiqaysiin kadib waa jarjaraysaa makiinada ku ridaysiin alafu maxaa ku daraysaan peanuts hal qaado ah ama looska sida u taqaanaan 3 qaado sonkor ah yogurtkii aad ku shubaysaan iyo koob biyo ah intaas aad isku shiideysaan kadib fridge-ka ayaa gelinaysaa subaxii intaad quraacanin ka hor hal koob ayaad ka cabaysaa duhuradii insha Allah markaad qadaysidna hal koob kale ayaad ka cabaysaa habeenkiina markaad cashaysana hal koob ayaad ka cabaysaa inta hadaad samaysid insha Allah wax natiijo ah waad isku arki doontaa waa nafaqo aad iyo aad u fiican oo jirka ku nafaqeynayso oo adigana aad ku cayili karto marka waxaan idin leeyahay asxaabta hadaa rabtid si dabiici inaad ku cayilto adigoo chemical isticmaalaynin si fiican aad ku cayisho oo wax dhib aan ka soo gaaraynin waa ina alaabtaas aad isticmaashaan waa alaab aad iyo aad u fiican jirka nadiif kaga dhigayso aad ku cayili karto natiijona aad ka helayso insha Allah si wanaagsan sidii la rabo hadaad u isticmaasho waxa sameynaysaa waa ina sidii la rabo ina u isticmaashid hal wiigana ina isticmaashid waayo asxaabta dad maxaad arkaysaa marka wax u sheegtid ku dhahayaan waxan wax faa'iido leh ma ahan waana tijaabinay marka Soomaalidan dhibkeeda maxaa waaye waxa hal mar ay tijaabinayaan isku markina natiijada raba inay arkaan marka isku markina natiijada lama helayo wax waa inaad ku dadaashid aad cabaar isticmaashid kadib ayaa natiijada helaysaa marka waxaan idin leeyahay walaalahay igu xiran gabdho iyo wiililba inaad tijaabisaan alaabtaas waa alaab aad iyo aad u fiican jirka nadiif kaga dhigayso oo adigana aad ku cayili karto adigoo dhibna ku geysanin dhibna isku geynin marka alaabta insha Allah soo tijaabiya natiijada marka soo heshaan comment igu soo qora wax kale oo arabta inaan ka soo hadlana comment-ka igu soo qora alaabtana sii share gareeya waa alaab aad iyo aad u wanaagsan asxaabtiin la share gareeya ilma wala siisan karaa caruurta way cabi karaan waalidiinta iyo dadka waaweyn way cabi karaan gabdhaha awlisha dhamaan way cabi kartiin waayeelada xitaa wala siin karaa inta cayil u baahan waa alaab aad iyo aad u fiican oo jirka u nafaqaysan cayilka la xitaa maahan nafaqana way leedahay waad ku cayilaysaa waad ku nuuraysaa waa alaab aad iyo aad u fiican jirkana u wanaagsan marka waxaan leeyahay asxaabtayda alaabtaha la tijaabiyo natiijadana hoos ayaa lagu soo qori doonaa insha Allah inaga arki doontiin alaabta waa alaab aad iyo aad aan ugu bogay
aniga isticmaalay waana ka helay. Marka waxaan leeyahay waxaad ka heshay waa inaa walaalahaadana la isticmaashid, walaalahana usoo gudbisid si ayagana u isticmaalaan. Alabta waa alab aad iyo aad u wanaagsan, waad ka heli doontaan insha Allah sida aniga ugu helay oo natiijada aan ugu arkay, inagana waad ka arki doontaan sida raba hadii aad u isticmaashaan. Marka caatinimada halkaas ayaan ku xirno, inta caatinimada dhibayso ha ka baxaan. Arintaas waa arin aan soo tijaabiyay, waan isku arki doontiin cayil aad iyo aad u fiican oo cayil xun aan ahayn oo lagu bararayo, laakiin cayil fiican oo jirkana ku nuurinayo nadiifna kaaga dhigan.